السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أرن أيا صوب بحذي أرن تسرع إن شاء الله إن إذا كلا هذلو جدّي سيد بنادري أيا مارتي وحيسكدي أيان إني ولا حريران بلها كفدي كراستا سي هوسوسة أيكو مارتي يسكدي أيا إني مارتي إلوسيان عدسي codsigii aan gudbinay oo ahaa in maaragtay guddigaas la kala diro guddigaas oo maaragtay naloo magacaabo guddi cusub hanan kara hawsha loo igmaday maalin hore codsigeena kaasoo ahaa hadalkii warbaahinta aan ka sheegnay kaasoo ahaa marka kaas ay wax isku dayayaan inayna iloosiyaan wax isku dayayaan maaragtay beelaha si hoos inay ula xiriiraan sidii maaragtay inaan ogolnahay weli inay xilkan u hayaan oo kaleentay marka waxa ay soo gaartay inay la soo xiriireen oday dhaqanka beesha qalmashuwe inuu u saxiixo wax sharciga khilaafsan inuu saxiixo maalin horena xildhibaanadii meesha ka hadlayay waxay sheegeen dadka sharciga jibinayo in maxkamad la hor keeno arrintaas ay sheegeen gudoomiyaha sit wuxuu codsaday wuxuu beesha qalmashuwe ka codsaday in loogu daro beesha qalmashuwe guddiga xulista ergooyinka in loogu daro hal qof yani hiliiskii maalin hore ay soo gudbiyeen oo ayada beesheeda ay ku qortay 4 qof in maaragtay hal qof loogu daro yani qalmashuwe hal qof loogu daro oo markaa meeshaas ayka ay noqdaan 3 qalmashuwe ay noqoto 2 codsi noocaas oo kale ay soo gudbisay arrintaasi soo bandhigtay laakiin arrinta khiyaano ku jirto khiyaanada ku jirto waxa waaye waxay rabaan in ayada beesheeda loo saxiixo in ayaka iyo qalmashuwe uu ka dhaxeeyo erga wadaag waxa ka maqan kaas way kaas raadinooyin marka haddii xataa maaragtay ay ku siiyaan 4 xubin ay ku siiyaan oo ayaka hal xubin ay la haraan 4 ay ku siiyaan adiga hal ay kala hareen sidii markii hore ahayd ay gediyeen meeshii ay ka 4 ahaayeen adiga 4 ka dhigin hal ay ka reebtay laakiin waxay rabaan ina u saxiixdid in maaragtay ayka iyo qalmashuwe inuu ka dhaxeeyo erga wadaag inuu ka dhaxeeyo haddana doorashada yaa maamula dadkii anaka isku dayay inay khiyaanana doorashada maamulayo mafaante qofka doorashada maamulayo oo rabo beeshiisa inuu maaragtay doorashada ku soo daro oo adiga rabo inuu kula tartansiyo si uu guuleysanaysa war hal xubin xataa maarkino ha soo gashay meesha si adiga uu guuleysanaysa asaga uu meesha joogay wixii dhab asaga maamula gacanta ku hayo asaga wuxuu isii awoodi ahayd in kuraas ay go'aan ka gaari karaan wali taas meesha taal ma fahanti marka wax jira ma aha wax soconaya ma wax jira ma aha ra'iisul wasaaraha wuxuu saxiixay in doorashada dadban lagu hirgeliyo habraaci ay ku heshiin golaha wada tashiga ee madasha qaran ee sanadkii 2016 marka muxuu sheegaa habraacaas wuxuu sheegaa in doorashada loo qabto beesha kursiga ku fadhiso in doorashada loo qabto saasoo kale habraacaas wuxuu sheegaa in guddiga heer federaal kan khilaafaadka iyo kan heer gobol saddexdoodaba ay ka hubiyaan beel kasto 3 wax waxay ku hubanayaan guddiga xulista ergooyinka cadeynayo iyo murashaxiinta kulli inay ka socdaan beesha kursiga ku fadhida habraaca kaas uu sheegay ra'iisul wasaarahana saxiixay wax arintaas ka duwan say meesha ay u keenayaan maalin hore anaga soo ma dhihin dadkaas maxkamad in la keeno waayo maalin hore anaga soo ma dhihin dadkaas in maaragtay xilka laga qaado waayo dad hanan kara hawsha ma ahan hawsha xilka gudin kara ma aha hawsha loo igmaday dad hanan kara ma aha maalin hore dadka anaga soo ma hayn warbaahinta hadalkaas ka sheegay sidee ay ku dhacday maaragtay inay noo iloosiyaan oo marka beelaha hoos maaragtay marba qole ay ula xiriiraan marka codsigan waxaan u diraa 3 xildhibaan baby xildhibaan Khalid iyo xildhibaan Fahma 3doodaba waxaan u diraa maalin hore geesinimadii ay muujiyeen inaysan dib uga laabanin maalin hore ogaada 3diina waxaa tusteen hoggaanka rasmiga ah ee beelaha banaadiriga ina idinka atiin haddii waxyaalahan oo kale la idinka saxiixdo oo dad jaahiliin ah
oo idinka siyaasadda ka yaqaano oo wax idinka ka waay aragsan wax kasta idinka ka yaqaano haddii waxyaalahaas oo kale idinka saxiixdaan markaas idinka gacantiina isku bireeyay waxaa ogolaateen in maaragtay dhoob madow caano cad ah kasoo miistiin kaas mustaxiil waay fahanteen khiyaanada meesha ku jirto never ha ogolaan khiyaanada idin khiyaanayaan guddiga heer federaal khiyaanada ay khiyaanayaan guddiga xalinta khilaafaadka oo haddana ay ugu daran yihiin kuwa maaragtay heer gobol beelaha banaadir oo ay haddana ku jiraan ay qaybna ay ka yihiin maxaa la yidhahdaa tiimka ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha khiyaanada ay khiyaanayaan dad idinka aad ka waay aragsan tihiin dad idinka aad oo ka ilbaxsan hoggaanka beelaha banaadiriga idinka waay ayka ma aha kuraasta ayka go-aan ma ka gaarayan kuraasta beelaa ku fadhiya beelaha iska leh madaxweynena go-aan ma ka gaari karo ra-iisul wasaarena go-aan ma ka gaari karo beentood waay wax jira ma aha guddigan yeerashada dadka u yeerana waa inay joojiyaan guddigan mowqifka aan istaaganahay ilaa haddeer anaga waxba iskama bedelin mowqifkeena waxa waye guddigan ilaa maaragtay la kala diro oo guddi cusub oo hawsha hanan karo sida hadalka aan niri aan u dhigna waay oo hanan karo maxaa la yidhahdaa oo xilka hanan karo in ona loogu dhiibo guddina lagu kalsoon yahay dhexdhexaad oo maaragtay aan maaragtay beelaha isku dhafaynin oo doorashadu qabanaya beesha kushii ku fadhiso guddi maaragtay aan kala taageersaneen maxaa la yidhahdaa aan kala taageersaneen murashaxiin aan kala taageersaneen mar labaad insha allah aan rabaa inaan idin xusuusiyo sida ugu dhaqsaha badan u gudbiya dacwad oo qoraal ee cusboonaysiya sida ugu dhaqsaha badan maaragtay guddiga xarinta khilaafaadka ugu qoraa warqad sida ugu dhaqsaha badan beritaba warbaahinta yaa laydinka wayna warbaahinta soo istaaga arrintaas soo cusboonaysiya wassalaamu calaykum waraxmat ullah